Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaad kula wadaago afarta tiir ee waxbarashada marka la joogo ugu muhiimsan, oo haddii afartaa tiir ay tayo yeeshaan ay ka micno tahay in waxbarashada waddankaas ay tayo yeelanayso, dadka wax ku baranaya waddanka gudihiisane ay noqonayaan dad wax soo saar leh, dad hal abuur leh iyo wixii la mid ah. Ummad walba marka la yidhaahdo raasumaalka ay ummad kasta haysataa waa labo. Labadaas raasumaal siday uga faa'iidaystaan ayay ummaddaasi horumarkeedu u noqdaa. Waa midda koowaade, raasumaalka koowaad ay ummaddu haysataahi waa bulshadeeda ama dadkeeda. Sida ay dadka u tayayso, sida dadkaasi tayo ay u leeyihiin, iyo sida ay dadka tayada leh uga faa'iidaystaan waa raasumaalka koowaad ee ummad kasta ay haysato. Raasumaalka labaad ee ummad walba ay haysataahina waa khayraadkeeda. Khayraadka waddanku uu leeyahay sida ay uga faa'iidaystaan ayay ummaddaasi horumarkeeduna u noqdaa. Inta badan raasumaalka ummaddu ay haysataahi qodobka labaadi wuxuu ku xiran yahay qodobka koowaad, oo haddii qodobka koowaad uusan tayo lahayn, macnaheedu waxay tahay khayraadka waddanka uu leeyahayne dadka ka faa'iidaysanayaahi dad tayana ma noqonayaan, oo sida loogu talagalay loogama faa'iidaysanayo, amase haba yaalatee maba la isticmaalayo, waddanka gudihiisa buu iska dhex ceegaagayaa. Sidaa darteed, waxbarashada marka la joogo waa tiirka ugu weyn ee ummadda tayada u yeela. Waa tiirka ugu weyn ee ummadaha caalamku maanta ay ku kala hormaraan. Sidaa darteed, marka la doonayo in waxbarashada tayo loo yeelo, afar tiiraa jirto, oo haddii afartaa tiir xoogga la saaro ay waxbarashadu tayo yeelanayso. Qodobka koowaad, waxbarashada xididkeeda iyo jiriddeeda waa macalinka. Macalinku waa waxa ugu muhiimsan waxbarashada marka la joogo, oo la-aantiisa aan tayo yeelanaynin. Markay 1972 la qorayay afka Soomaaliga, si bulshada Soomaaliyeed afka Soomaaliga loo baro, wayna ogeyn in ololihii jaahil bixinta dowladdii waqtigaa jirtay ay markaa hirgelisay, ama ololihii la odhan jiray Mass Illiteracy Campaign, taasoo keentay in ilaa iyo 34 kun oo dhalinyaro Soomaali ah in marka ay wax bartaan oo wax qoraan waxna ay akhrin karaan. Macallinku marka waa tiirka ugu weyn ee waxbarashada. Maanta marka la joogane in 3 kun oo macallimiin ah imtixaan laga qaado oo tayo loo yeelo waxay ka micno tahay in sanadaha soo socda macallimiintaasi ay wax badan dalka ka bedeli doonaan. In ardayda ay wax u barayaan ay noqon doonaan arday tayo leh oo uu wax soo baray macallin la soo tayeeyay. Wax qodobka labaad ee waxbarashada aas-aaska waxaa ka mid ah waa manhajka. Manhajka waxa lagu baranayo waa tiirka labaad ee aas-aaska waxbarashada, oo haddii aan la tayaynin manhajkaas oo aan la midaynin, waxbarashadaasi qiimo weyn ma yeelanayso, oo waxay noqonaysaa waxbarasho isku dhex yaacsan oo aan kala nidaamsanayn. Qodobka saddexaad ee waxbarashada aas-aaska u ah waxa weeyaan waa ardayga. Ardaygu walow uu yahay miraha u dambeeya ee waxbarashada marka la soo tayeeyo soo baxaya, haddana waa tiir ka mid ah tiirka aas-aaska u waxbarashada, oo marka ardaygu tayo uu leeyahay ayuu waddanka horumarkiisu uu kobcayaa, oo cidda beri waddan ka shaqaynaysa ee madax ka noqonaysa ee ummadda hogaamin doontaahi waa dhalinyarada ama ardayda. Marka ardaydu waa tiirka saddexaad ee ugu muhiimsan waxbarashada. Tiirka kale ee waxbarashada ugu muhiimsan waa goobaha waxbarashada. Meesha wax lagu baranayo, fasalka ha ahaato, jaamacadda ha ahaato, ama meelaha kale ha ahaato, in meesha qalabkii wax lagu baranayay uu ku diyaarsan yahay, nidaamkii meesha ka jira uu yahay nidaam kala dambeyn leh oo hagaagsan, iyaduna waa waxyaabaha waxbarashada tayada u yeela. Saa darteed, ka Soomaali ahaan haddii aynu doonayno inaynu waxbarashada tayo ay yeelato, waa inaynu afartaa qodob aynu xoogga saarnaa.
caalamka wadamada horumaray markaad eegto afartaa qodob ay unbay ku hormaraan ama si guud markaan idhaahno waxbarashada oo tayo yeelataahi wadamada caalamka waxa ay ka dhigeen kuwa horumar xaqiijiya horumar la taaban kara xaqiijiya dunidana hogaamiya si marka anaguna ummadaha aynu qayb uga noqono oo aynu uga daba tagno waa inaynu waxbarashada tayo u yeelnaa si shacabkanu ay tayo u yeeshaan tayo marka shacabkeenu yeeshaane wax qabad la taaban kara ayay soo saarayaan waa mahadsantihiin